أنا أقول لها بصراحة وجود وحاس يعني عن صاحبه dhacdaan oo kale hadii kugu dhacdo waxaan kaa codsanaa inaad liijabin aad hore u dhaqaaqdo mideeda kale mar walba ka hormarsii qof intaad wax weydiinin adama iga soo doona maxaa aniga kaamka talooyin ma ii furnaan goyda saaxib السلام عليكم وعليكم السلام walaalkay iyo waran xaaladda ka waran caafimaadkaaga waa sidee maanta waxaa waaye socodaan kuu ahaa saaxiibka iisoo dhawa ni waa fiican alxamdulilah maasha allah nabadda ay garan maanta waa ii imaaday waxaan kaa rabaa arrin muhiim ah inaad ila hadasho yaa maantana wax kale ma aha waxaan rabaa inaan guursado yaa aroosa waxaan rabay inaad ila taliso adigana waa hore usoo guursatay من سبحانه كلا تكتين مطروحة الفكر يوم حالها والطلاق إنا إسيسان ربي قدامه ماش على أي نورسي إنا فكر إسيسان ربي نيو أوه يعني إنا ماش كأوه ربي تلوين صما كسينا ندوف على كسينا تلوين أوه أنا أكتر معناه أنا قديم وعلى كل صورة سلوحة صغير أوكي نيو صاحبك دور طلع كوايا عندها مش أنا كأقول أنا أقول لها بصراحة وجود وحاس عارف عن صاحبنا صاحب يعني لو أنا صدق أسلوب كذي صدق حنينة ما نكمل حماقة عني أي مقولات خليلة هين لبوس صاحب رقم حل على الحلي لا يكون كسر بورسو لكن أنت كهريسو وعيرتاي استحمل بقولنا زوجين يا استحمل بقولنا زوجين هذا أنا وفعلا بقى وفهمت بس يعني من صحيح كذا قلنا كسورة سوينا الفيديو بسن والله يحفظك أنا ما حسنا تقول في عام كذا زاد أنت هاجي هو الجوسن أصلا مسنت حب الجوسن نرشح حتى هو قلبي الله صومالي حمرنا والله هذا حاصلنا يا طلق بس العالم تيسا راعة مسكحة ينكشف قيسية بفهم لا عشان أوراق هو تلك الدور لما كانوا لي يا أنا مسكحة ينكشف قيسية أكيد قطعوا أفضل من حلوين كنا سهل أما كنت درسته أم حال أكون نجح حلي أنا كلمات الكسورة الأولية يعني أنا كان والله بالله hal ibrahim dulu mau guursan nabi kaagan marka aniga saaxiib hore saddex soo guursaday ilma ii joogo asagana saaxiib xilligan aan tala iyo waxay suuraysana saaxiib goydano ha guursan weliga saaxiib ma hal taagnaado dadku talaa wallahi ay saaxiib waxaan talay ugu ficil waa taagan ya tala ama guursan ama iga soo noqon maxaa aniga kaamka talooyin ma ii furnaan goyda saaxiib walaal muuqaalkiina maanta wuxuu ku saabsanaa saad qofka bini'aadamka ah aad tala weydiisan lahayd dhacdaan oo kale hadii kugu dhacdo waxaan kaa codsanaa inaad liijabin aad hore u dhaqaaqdo mideeda kale mar walba ka hormarsii qof intaad wax weydiinin adi maskaxdaada ku fikir oga wixii aad mar dhigtay kadib qofka talo ogaadso markuu wuxuu reaction kaa siiyo iyo taada isku fiiri markaas kadib waxaan leeyahay muuqaal caynkaan oo kale inta kuma doono sidaas iyo amaanaawo